intaas ku saabsanaa maxay tahay sida loo gabdhaha waxbarashadooda gabdhaha sida wax loo bari karo muhiimadda ay leedahay ama waxbarashada gabdhaha muhiimadda ay leedahay insha Allah wuxuu noogu eegay maanta iyo waxyaalaha saameyn kara khataraha ka imaan kara haddaan gabar aan wax la barin dhibaatooyinka soo wajihi kara sidana ognahay waxa soo madhay xeerar badan oo gabdhaha waxbarashadooda kaltan ahaan iyo dhaqan ahaan dadkan Soomaaliyeed qofka si uu aaminsan yahay waxyaalo badan baan ka faa'iidnay waxa ka faa'iidnay in maxay tahay sheeg gabadha wax baratay ay tahay qoys wax bartay familka anfacayso bulshada anfacayso nafsadeeda anfacayso gurigeeda anfacayso khataraha ay leeyihiin kasaakana waxa qaadanayna khataraha ay leedahay waxbarashadaantu sababtan soo ah in ay gabadhii loo waalidku culture ahaan markii loo eego in FGM loo sameeyo oo damage badan ka soo gaaray ama khataraad badan ay kala kulmayso xag nololeed iyo xag mustaqbal ahaan iyo guurka degdega oo gabadhii iyadoo hanti iyo lagu bedelanayo siinayo familkii la dhahay gabadhaas oo mustaqbalkeeda halkaas ku lumiyo insha Allah waxaan leeyahay intaas